madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kulankan uu la qaatay saraakiisha guulaha muhiimka u soo hooyay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka soo qalin jabiyay kulidaha ciidamada ee dalka Itoobiya waxa uu madaxweynuhu ugu tala galay inuu ku dheerigeliyo shaqada nafurka ah ee ay qarankooda iyo shacbigoodaba u hayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku qaabilay saraakiishan waxa ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland xubno kamid golaha wasiirada xildhibaano iyo hoggaanka taliska ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye gaas Nuux Ismaaciil Taani taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warramay guulaha saraakiishani ay u soo hooyeen qarankooda iyo aqoonta ay ku kala taqasuseen mudan madaxweyne saraakiishani waa saraakiil si ka soo qalin jabisay Itoobiya qaarkood 7 sano ay maqnaayeen waxaana kala yihiin staff college oo afara logistics oo BS degree kuwa staff college waa masterate logistics waa BS first degree intelligence kuna waa first degree raggan waxa ku jira qaar bilada dahaba qaatay laba sarkaal oo kamid ah oo xilliye kala duwan qaatay ciidamada Itoobiya dhexdooda ka qaatay gaashaan la Siciid Aadan wanakan waxa weeyaan waa ninkii number 2 oo galay imika kulliyada oo dhan waxa weeyaan biladii horena uu lahaa bilad dahaba madaxweyne watan gaashaan la Axmed Ciise isna bilad dahaba uu qaatay wuxuu ka qaatay markii 3 sano ee kaadidka ahaa ayuu isna ku qaatay gaashaan le Axmed Dagaal waa sarkaalkaasi isna waa staff college gaashaan le Maxamed Daahir Shardi isna waa staff college mudane madaxweyne iyagana waxa farxad u ah inay maanta madaxweynahoogii hor joogaan oo in la og yahay ay ogaadaan qaymeyn bay maanta u tahay madaxweyne wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf Xawar ayaa tilmaamay qiimaha ay leedahay in la kobciyo dhismaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne waa run dhamaanteen sharaf iyo karaamay noo tahay inaynu maanta raggan quruxdan iyo wanaaggan ka muuqdo heebadan iyo inta taliyuhu ka sheekeeyay aanu maleynayo arbis ciidan iyo tababar iyo aqoon iyo academic ba maanta wax u dhimanaan jirin tusaale iyo experience ay gacanta ku dhigaan mooyaan way fadhigan kula fadhiyaan motivation iyo macnaha dhiirigelin iyo mustaqbalka qaranka ciidanka qaranku inuu iyagu sugayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa saraakiishan ku bogaadiyay dadaalkooda iyo guulaha ay dalkooda u horseedeen aad iyo aad baan idin hambalyeynaa saraakiisha ku soo qalin jabiyay bilada dahaba 7 sano soo waday ee dalkana magaca u soo hooyay markaad kuladii ku jirteen dawladaha Afrika badankooda oo dhan oo la isugu yimid oo laga yaabo in badan Soomaaliland baa inaan aqoonin ama aan maqalba waxa qaranka ugu magac weyn ninka fagaara caalamiga wax dalka lagu xusuusto soo saara marka aad iyo aad baa qaran ahaan la idinku mahadnaqayaa oo la idinku xusuusnaan doonaa guusha maanta keenteen sharafa diblomaasiyada magaca aqoona ee maamus militariga abaalgudka soo qaadana biladabka intaas oo dhan buu keenaya marka waan ku mahadnaqaynaa dadaalkaas oo Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sharaxay kaalinta ciidamadu ay kaga jiraan horumarka qaranka iyagoo naftooda u hura jiritaanka qarankooda iyo nabadgelyo ku noolaanshaha shacabkooda waa tiirka dawladnimada ciidamadu inta badan ma jiro in 0.1 ma gaaraan oo noloshooda dhaqaale ka sameeya laakiin waxay helaan sharaf aan ciidan helin sharaf aan ciidan helin imika markaa tiraado waa sarkaal la yiraahdo meel soo joogo oo la idin joogsanaya laakiin waa agaasimo waa macallin waa lawyer ciidamo joogsato marka waxaan ku soo koobaynaa xilka idin saaran sida uu sheegay taliyuhu ragga mustaqbalka ciidanka qabanayaatiin
qarankuna haddaanu maanta adduun badan iyo munayn badan iyo shaxshaxaan laydin hayn laakiin niyaddaa laydinka ogi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi ayaa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan bartankeeda shahaado sharafe ku guddoonsiiyey saraakiishan ka socday ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee dalka etoobiya waxbarashada ku soo dhammaystay kuwaasoo ka soo hoyiyey bilado dahaba kaalmo sarana ka galay tababarka ee dalka etoobiya in muddada ay ugu maqnaayeen ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishanka qaranka jamhuuriyadda somalilan qasriga madaxtooyada somalilan